sanadkanoo kale 2016 doorashadu markay hal sano ka dhimay social media waa lagu arkaan u malaynaa khayr allah siya muxuu hogaamiye Cabdulqaadir ayaa hadda inta ka sheegay يعني dad badan oo madaxa oo qaarkood ra'iisul wasaarayaal soo ahaayeen oo in badan oo kamid ah wasiirro ay soo noqdeen oo in badan oo kamid ah dawlad goboleedyada ay ka soo shaqeeyeen xildhibaano soo ahaayeen ayaa ku jiray tartanka dawladnimada maalin walba anagu waxaan marna aanan isku dayin isku mashquulinin in aan ka raadino guul in qofka Soomaaliga la caburiyo ama xuquuqdiisa lagu takfalo dastuurka professor Xasan Hadaatu inta laga tusayay waa qabyo wax badana ka dhiman wax badanaan caddayn laakiin afartii kutii loo caddayd haddaan dhowri weyno waxa dhiman goormaan dhammaystirina goormaan dhowrina dastuurkaas wax badan uu qeexayaa xuquuqda aasaasiga ee muwaadinka Soomaaliyeed gabar iyo wiil sheekh iyo shariif meel kasta uu joogo waa ku tilmaaman tahay xuquuq siman inay leeyihiin waxa annaga مثلا hadda dadka siyaasadda Soomaaliya ugu ogaalka badan ama ugu waaya aragnimada badan aan nahay odayaal siyaasadeedana si aanay dhibaato dastuurku wuxuu qorayaa muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay muwaadiniinta Soomaaliyeed xaq u leeyahay inay isu tagaan inay biyo abaabushaan inay urur samaystaan inay shiraan isku tagaan markaasuu si cad wuxuu u leeyahay fasaxna uma baahna si ay saas u yeelaan waa isu tagaynaa inaan dhahno fasax uma baahna ayuu dastuurku qorayaa ومع ذلك ظروف بريها jirtay iyo sida ay u fikiraan dawladdeena annagoo aragnay iyo hogaamiyaasheena dawladda qaarkood dhibaatana ka cararayna fasaxan weydiisanay dawladda maanta meeshaan in la isugu yimaado sharciyan fasax uma baahnin laakiin haddana yaan laga balaayo abuurin oo aan laga waxaynin ama dadka Soomaaliyeed intii yaroo xoogaa garaadkooda siyaasadeed aanu kor ahayn yaan loo been sheegin awgeed fasaxan ka soo qaadanay wasaaradda amniga maanta fasaxaasaan isugu nimidaan meesha ku joognaa waa cararnay waa sii cararaynaa waana laga ninka tooreyda ku eriyey muxuu yidhi war walaalo waxaan la rooraay naftaada ku jirtee iga har dawladda waxaan u sheegaynaa waxaan la roorayno jiritaanka dawladnimada ku jirto dhowraynaaye yay jadda lagu sii geyn hanaga harto markaan ka dhacay muwaadiniinta Soomaaliyeed markaan saas leeyahay annaga markaan leeyahay waxaan ka wadaa muwaadiniinta Soomaaliyeed aad loo tilmaamay wax kasta xaday leeyahay dulqaad kasta xaday leeyahay adkaysi kasta xaday leeyahay in aanan la sameeynin waa rabno marka dawladdii sidaas u sukubaysay annaga waxaan rajaynaynay dawladda oo hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha federalismka inay sii dedejiso oo maanta degmooyinka jamhuuriyadda dhan maamul ay leeyihiin si shabaabka loola dagaalamo oo loo waxeeyo federalismka markii la abuuray ugu yaraan caasimadaha dawladaha federaalka waa ammaan qaarkood degmooyin badan oo dawladahaas ka tirsanaa ammaan ah oo meelo yaryar ayaa cadow ku harsan yahay dawladnimada in la sii wado oo degmo la geeyaahay waxay ahayd waxa dhimanay ahayd saddexdii lakab ee dawladnimada dawladda dhexe dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka local government waxa la lakabkii dhinaayo ahaa sheekadiisa waxaan u maleynayaa maalmaha ka mid ah inaan la soo qaadin xataa warseen la yeelaa tii jirtay aba ha dhicin ha jabin ilaahu yay burburin ilaahu inta ka celi xalay waxa ka dhacay muxuu ahaay garowga waa maqlaysay kismaayaan hore ugu soo wareernay waxaan ku soo wareernay muxuu ahaay koonfur galbeed hadda galmudug ay ka taagan tahay oo la sheegayay dadka qaarkiis xataa muwaadiniintaas ma dhoofi kartid ma bixi kartid inay dawladda awooddeeda inay u isticmaasho sidaas waa soo tijaabinay laguma cusba xataa kuma sirmi karno dadka Soomaaliyeed kuma sirmayaan waan soo tijaabinay waa soo joognay allahumma dhalinyarada 20 jirka iyo maxaan ku raasoo 30 jirka waa laga qeynay laakiin dawlad sida la sheegay BBC lama dhageysan karo leh waa soo marnay yaanan loo celin meeshaas dawladnimo waa sharci haddii sharciga la mari waayo lagu dhaqmi waayo la dhowri waayo dawladnimo ma jirayso
dowladnimo waa qaanuun dastuurkaas iyo qawaaniinta dalka ka jirta qawaaniintuna waxay leeyihiin waxa aan sheegnay muwaadinku lama caburin karo nolosha dowladdu mas'uul waxay ka tahay nolosha muwaadinka inay hagaajisay kor u qaaddo waxa meeshaan maanta laga sheegayna waa maqlayseen dhaqaale ahaana muwaadinkii loo curyaaminaa caqli ahaana loo curyaaminaa fikir ahaana loo cibaado ahaana loo curyaaminaa masaajidda ma aadi karaan xataa haddii shabaabna meel saas ka yeelo dowladdiina dhinaca kale saas ka yeesho war dadkaani muxuu ahaay intee u magaciisa macquul maaha marka dadkan waa dad wanaagsan ummad adduunyada ummad wanaagsan hadday jirto ummadda soomaaliyada kowka ah ummadda soomaaliyada kowka ah dulqaadkeeda deeqsinimadeeda adkaysigeeda waxeeda waad aragteen ummadda soomaaliyada wanaagga kowka ah markay xad gaartana wax kastoo xoog loo yimaado inay iska celi karto waa la arkay dowlad soomaaliyada xoog lahaa markay takrifashaa la iska celiyey ajnabi xoog lahaa maalin maalmaha ka mid a beledkan aniga waxaan soo joogay oo cimrigayga isiiyey in ka badan 20 helicopter ayadoo magaalada muqdishotaas u dul taagantahay maxay u dul taagneed nin jenaraal ciidiid allah u naxariistay in lasoo qabto waa lasoo qaban waaye maxaa loo soo qaban waaye dadka magaaladan jooga dad ka mid ahaan ogolayn in la qabto oo diidanay bas hal nin maa lasoo qaban wayna hal nimoo dadka iska laafyoonaya waa lasoo qaban kara sax ma u ahay khalad ma u ahay inta ma u ahay ma aha laakiin dadkan waxay awoodaanay daliil u tahay qudrada iyo awoodda dadkan ay leeyihiinay daliil u tahay waxa ay rabaanna inay suubi karaan waxa ay diidan yihiinna inay iska diidi karaan marka dulqaadkii xuduuddii dulqaadkaa weli lagu dhex jiraa